magaalada Buuhoodle waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirweynaha beesha Axmed Garaad kaasoo muddo 3 cisho ka soconayay magaalada Buuhoodle shirkan ayaa ugu dambeyntii laga soo saaray qodobo waxaana ugu horeyntii halkaas qodobadaasi ka soo jeediyay Caaqil Cali Cabdi Cali Dahable go'aamada shirweynaha beesha Axmed Garaad Buuhoodle ku shirayay 23 ilaa 25 bishan shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen ergooyin ka kooban 300 oo laga soo xulay dhammaan jilibada Axmed Garaad oo ka kooban uqaal culimadiin aqoonyahan garbood ganacsato iyo qurba joog uu la hogaaminayo garaadka guud ee beesha Axmed Garaad Galaabsaaq Galaasoofe Duraan loona fadhiyay muddo 3 maalmood ah falanqayn dheer iyo dood dheer kadib waxa ka soo baxay go'aamadan hoos ku xusan waxa shirweynuhu go'aamiyay in beesha Axmed Garaad u midowdo danaheeda adduun iyo kuweeda diimeed labadaba meelna uga soo wada jeesato wixii midnimada dhaawacaya qodobka labaad waxa shirweynuhu isla qaatay in ay beeshu gudaheeda nabad ku wada noolaato nabadna kula noolaato tolweynaha deegaanka iyo derisyada kalaba si wada jir ahna looga hortago wixii nabadda jabinaya qodobka saddexaad waxa beeshu isla qaadatay ku dhaqanka shariicada islaamka guud ahaan gaar ahaan fulinta qisaasta shariicada waafaqsan waa qodobkii saddexaad qodobka afraad waxa shirweynuhu go'aamiyay in beel waliba hubkeeda xarayso lagana ilaaliyo inuu gacanta u galo dhalinyarada wax magaratada ah qodobka shanaad waxa shirweynuhu go'aamiyay in guddigii Axmed Garaad ee horay u shaqeynayay sidoodii u shaqeeyaan ayna wada shaqeeyaan guddigii uqaasha beesha qodobka lixaad waxa shirweynuhu go'aamiyay in cabashooyinka ka dhex jira jifo hoosaadyada Axmed Garaad ay dhexdooda iska qanciyaan oo dhameystaan wixii u dhaxeeya haday dhamaan kari weydana ay u soo gudbiyaan gudiyada Axmed Garaad lixda qodob waa go'aamadii ka soo baxay shirka oral baan ku akhriyay waxaan rabaa inaan marti sharafta ka soo qayb gashay shirka aan tusno bal sida wax u dhaceen baaqa iyo bogaadinta waxaan rabaa si ergooyinka khayr Allah si lagu sharfay shirkan ay waxay noola ogaadaan qodobada go'aamada lixda ah ee aan akhriyay guddigii Axmed Garaad ee ansixiyay gacanta ha taagan gudiyada Axmed Garaad ee qodobada aan ansixiyay akhriyay qodobada aan akhriyay ansixiyay gacanta ha taagan dabcan waa u jeedaan waa gudiyada Axmed Garaad inta aan gacanta taagin waa marti sharaftii shirka lagu casuumay halka waxaan kaga gudbayaa go'aamadii lixda ahaa waxaan u gudbayaa dardaarankii 4 qodob ahaa waxa shirweynuhu ku boorinayaa jilibada Axmed Garaad in magta loo daayo cidii dhaxalka leh ee Ilaahay u waajibiyay oo aan xaaraan iyo xoolo agoomeed la quudan waa qodobkii ugu horeeyay dardaaranka qodobka labaad in jilib walba uu ururiyo sakada waajibka ah uuna siiyo cidda sakada mudan ee isla jilibka dhexdiisa ah qodobka saddexaad in shirweyne sanadle ah beeshu qabato oo ay kaga tashanayso danaheeda gaarka ah waa qodobkii saddexaad qodobkii afraad in bulsho weynta reer Buuhoodle ku wada noolaato nabad kuna midowdo ku dhaqanka shariicada islaamka ilaalinta nabadda iyo horumarinta deegaanka afartii qodob ayaa halka inoogu dhamaaday ee dardaaranka ahaa halkii qodob ee bogaadinta ahaa waxa shirweynuhu bogaadinayaa nabadda u xidhantay beelaha walaalaha ah ee ugaadhiyahan Siyaad iyo Jaamac Siyaad
qodobkii dardaaranka qoraqii baaq ahaa ugu dambayn waxaa shirweynuhu ku baaqayaa in beelaha walaalaha ah ee xasan ugaas iyo ciise maxamuud ay ku dhammaystaan dhibkii dhex maray wada xaajood iyo is-afgarad lana baajiyo in dhiig dambe uu ku daato deegaanadaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin ugu dambayn garaadka beesha garaad cabdirasaaq garaad soofa durraan ayaa isaguna halkaasi go'aamadaasi ansixiyey sidoo kalena u duceeyey go'aamadii waa idinla qaadanay waa idin gudoomiyey waa go'aamo qurux badan inay fulaan baa la rabaa siday u fulayaan waa sidee ninka mas'uulka ah waxa qilka jilibka orda fulinta aynu maanta haysanaa waa raaska miyaad fulin kala garanaysaan ballanteenu waxa weeye ninkii wax dila raaskiisa ciidan aan ahayn oo maanta aanu haynaa ma jiro go'aanka raaskiisa nin aan ahayn oo maanta fulinayso aanu haynaa ma jiro ninkii badheer wuxuu dila raasko adaa laga rabaa haddaad yeeli weydo dariiqaas ka baydho cidda aad la dagaalamayso waa allah subxaanahu wa tacaala cidda markhaati ka ihina ummaddan arrada uu markhaatiga uga dhagay wey saasay ballankeenu tahay in la daadejiyana sidii halkan looga sheegay culimmada qaarkood uga sheegeen raas walooba inaad dib isugu noqoto ood arrintaa isu daadejiso oo wiilkaa loo sheego xalka loo hayaa inuu yahay qabasho ninkuu wax u geystay ama ha sii daayo ama hadira in hadda loo sheego intuu nabad qabo oo aynu gaadhno marka labada qof isku xanaaqaan inay ninkii toorida tuuro oo kii qorista qoriga tuuro ay isfeedhaan haddayna isfoorkii xitaa isaga tudhin daadejinta waxaa laga rabaa mas-uuliyiinta laga rabaa ibraahim cabdiqaadir jabaan warbaahinta kalshaale Buuhoodle.